siyaasi maxamed iidle cabdulle oo ka mid ah odayaasha ka soo jeeda gobolka Sanaag oo maanta muqbaaya caalamiga ee Kalsan TV ugu warramay magaalada Hargeysa ayaa baaq dheer u soo jeediyay beelaha dirirtu ku dhaxmartay deegaanka Ceelaf Weyne isagoona uu sidoo kale soo dhaweeyay waawanta ka soo ifbaxaysa deegaankaasi waxa ka soo kordhay aad iyo aad maanta doonay halkan aan wa sheego waxaan aad u hambaleynayaa labada beelood gaar ahaan odayaashooda boqor Cismaan aw Maxamuud boqorka maxay ahayd beesha bahood ama maxay ahayd biciide iyo boqorka sultaanka maxay ahayd Saacad Yoonis sultaan Saleemaan Caawil Dirir iyo cuqaasha odayaasha halkan ku kulmay iyagu markay arintii dib u eegeen gartay inay iyagu arintii xalilmi weydiisayna waxna lahayn intii ay weydiiyeen oo wada kulmeen yiraahdeen inagu warbal Soomaaliya dhow isugu kaantimi dadkii oo dhan isugu kaan yimi wada hadalay waxba qaban kara weynay ma eegnaado ma isla eegna bal inaynu inagu beelahaan intaynu wada fariisano aynu wada hadalno oo aynu nabad keeno taasoo ah imanka aad muddo la isla afkartay waxay ahayd hadii ay tahay sultaanka iyo boqorka hadii ay tahay maxay ahayd cuqaashii bisha hadii tahay aqoon-yahanadii taasoo aan doonayo markaa anigu ka shakhsi ahaan Maxamed Iidle ahaan inaan hambaliyeeyo siyaasi maxamed iidle waxa uu sidoo kale si weyn uga hadlay xaaladda jabhadeed ee waqtiyadii u dambeeyay la sheegay inay ka jiraan deegaano ka tirsan gobolka Awdal waxa keentay waa midhihii ay dhashay SNM dhaxalkeedii meel wanaagsan buu maray waxa loo baahan yahay in hore loo socdo oo aan dib loo noqon in la higsado wixii burburay in dib loo soo noolay wadaalaynu dhisnay tacliin baynu dhisnay iskuulaynu dhisnay wali laynama soo dhaqaalaheenu waa aad iyo aad buuriye waxa walbana waxay ku xiran yihiin xooga dhaqaale ee la abuuro ay ku xiran tahay marka wax weeyaan waxaanu institutions aan ka dhisnayn maxay ahayd geeska Afrika ayanu dhisnay waxaanu dhisnay golayaal waxaanu dhisnay maxay ahayd maamullo waxaanu dhisnay dawlad haykal dawladeed oo aad iyo aad loo leeyahay marka dunida laga hadlayo marka waxaan leeyahay waxaan u baahanahay maxay ahayd wuxuu waa isu dhib in la xoojiyo maamulka institution organizations kala xoojiyo baa inaga dhiman taas waxaynu u soo jeesano wixii kale way u soo jeedin laakiin wali wax weeyaan habkii dawladnimada loo dhisayay iyo maamulka taas loo jeesto taa la isku taageero laga baxo shakhsiga iyo qabyaaladda iyo waxa aan loo baahnayn gacanta la isqabsado Maala Cabdi Axmed Kalsan TV Hargeysa.